Kusoo dhawaad qaybtii afraad ee taxanaheena. Anshin walaalkeena family wuxuu ku dhahay si uu aragtan hadda shirkadda shaqo ka siiyay Anshin wuxuu ku dhahay maangu gabadhaas ma iga dabadaa Anshan waxay dhahaysaa family waqtigiisa naga halaynin. Xaarkeena maalinka Anshin guriga kasoo bixinay maangu wuxuu dhahay maanta laga bilaabo xiriir naga dhexeey meel boorsada waa inaa qaadataa guriga tagtaa ween kasoo kacaysaa hubdo waxay arkaysaa gurigeeda alaabta la bixinayo. Marwada waxay dhahaysaa guriga kalidiisa waa bixin weysa alaabta guriga ku taalo dhan ayaa xaraashay kiskis ayaa u bixinaya dhahaysaa inuu shaqadeena ay dhahaysaa. Dhankan waxaa arkaynaa Anshin walaalkeed inuu imaanayo wuxuu ku dhahay masuudahay maxaana dhacayo alaabtan inta u taala iyadana waxay dhahaysaa guriga kalidiisa ayaa bixin waa guriga banaanka ayaa la iga soo saaray isna wuxuu dhahay soo baxan iga ayaa ku wadaayo. Sidoo kale ningi ayaa arkaynaa saaxiibkiisa wuxuu ku dhahay meermeerinta iska daya cunto karinta wax walba qalbiga ku jiro sheeg alaa imaan waxaan ku dhashay guriga Anshin waa laga soo bixiyay. Dhinaca kale Anshin asxaabteeda wuxuu sheegaysaa gurigeeda cusub adreeskiisa inuu imaanaysa walaalkeed si ay u caawiso mobilkiisa ayaa la soo wacay waxaan ugu dhahay alaaba ku taal waa inaad umaad waxa ogaanina alaa inay wax iska dambeeyso korna ay ka ilaalinayaan. Marka ningi wuxuu sameynaa iyaga cunto afka isku gelinaya alaa ku dhashay wax qaldan ha samaynin. Anshin aad walaalkeed banaanka waxay ugu soo dirsanaysaa waxaan soo aaday supermarket waxa arkay gabadh uu caawinaa. Hab arkayna gabadh uu caawinaa inay soo yooyatay Anshin saaxiibteed waxaan dhahaysaa alla qurux badan. Sooyan waxay dhahaysaa waa inaa hada daw galaa adreeshada walaalkeed lagu soo baxay wuxuu raacay gaarigiisa. Sooyan waxay dhahaysaa waa bilowga jacaylkayga. Dhinaca kale Anshin baabka ayaa la soo garaa waxa arkayna tawreed lingi inuu yahay idin meeshan iskaga tagay ay dhahaysaa isna wuxuu dhahay cuntada ku soo kari waa cunaysaa anna waa burinaysaa miya idin waxay dhahaysaa cuntada waa daadiyay. Anshin wuxuu ku dhahaysaa kani gurigaaga ma isna wuxuu dhahay meel walba adiga joogtid waa gurigayga. Dhinaca kale Sooya ayaa arkayna waxay arkaysaa Anshin walaalkeed waxayna dhahaysaa mar kale ayaa kulanay inta ma degan tahay ay ku dhahayaan waxay isa soo raacayaan wiishka ay isku soo raacaan wuxuu weydiinaa lambarkii u baahantay marka uu sheegay isna wuxuu dhahay meesha ay soo aadin waxay Anshin walaalkeed maatay isna wuxuu dhahay hayugo ayaa la yidhaahdaa ay dhahaysaa Anshin walaalkeed saaxiibteed guriga imaan sekretariin waxay dhahaysaa gudaha ma gudbi karta isna wuxuu dhahay kani waa gurigayga yugo waxay dhahaysaa saaxiibteed ninka gabadha ka dhacdaadi waa soo maahan tawreen ningi wuxuu isku tagay tirishada inuu shaarka u xiro waxaa arkaya tirishada walaalkeed gudaha u soo galaya kaleex ayuu dhahaya taawatay ayuu dhahaya gacan ayuuna u qaadaya dhankale tirishada waxay ku dhahaysaa maxaa ugu baxsan weysa isna wuxuu dhahay walaalka inta gacan qaadaha xanuunka ayaa doorbiday hayiradiisa ayaana meesha ka kaxaynayso Anshin walaalkeedna aad waxaa anaqaya miisku gacanta ku dhufanaya Sooyan waxay dhahaysaa gacanta wax iskaga dhawaaday dhankale Anshin gacanta ayay ka dhahaysaa Anshin waxay ku dhahaysaa isfahandara ayaa jira isna wuxuu dhahay wax isfahandara laa ma jiro wuxuu sameynaya ma arki meeyay waxay dhahaysaa inaa gacan u qaad waa ku qalbinay isna wuxuu dhahay mar dambe guriga ma ku arki karo dhinac kale tawreen ningi waxaa laga dhahay dhawacyadii soo gaaray alien waxay dhahaysaa makulata inuu ka cafinaysa Anshin isna wuxuu dhahay haa darkan alien si qalad u taawanayo alien meeshii loo baahnaa dhigaysaa caawa ayuu dhahay markay caawis marka uu taawanayo way dirigaysaa waxayna dhahaysaa intaadan soo gaarin marka hore waa inaad ka fiirsataa dhinac kale waxaa arkayna tirishada Anshin iyo saaxiibteed waxay ku dhahaysaa waxaa u malayn inuu ku jecel yahay waxaaba la soo hadlaya tawreen lingiyo Anshin waxay weydiinaysaa caafimaadkiisa dhankale waxaa u imaanaya walaalkeed waxayna ku dhahaysaa walaal xiriir male isna wuxuu dhahay meelan qof iyo munaasabaasi waxayna dhahaysaa yooyo sidoo aragta isna wuxuu dhahay gabadhaas maanguub ayay kasoo baxday ningiina tirishada ayuu qurac u diyaarinaya fariin ayuuna soo qaaday wuxuuna imaanaya guriga Anshin wuxuu dhahay quracan si kalgacayl kuu soo diyaari maalinka kuu wacnaato Anshin walaalkeedna quracdii loo soo dhiibay ayuu ka qaadaya qashinka ayuuna ku daraa wuxuu dhahay anaa jikada ku bislaa quracdeeda cunaysa dhinaca kale shirkad dadka wuxuu ku xamanaya alien iyo ningi inuu xiriir ka dhexeeyo doctorkan uu maqlay wuxuuna arkay iyagoo aad isku dhow alien meesha ayay iskaga soo tagaysaa doctorkan wuxuu dhahay adii alien xiriir ayaan ka dhexeeya tawreen ningi wuxuu dhahay ma jeceshahay iyada isna wuxuu dhahay aamus tirishada waxay soo qaadaysaa macaamiisheed wax lagu soo dhiibay waxaa arkay inuu faaniya wuxuuna dhahay gudaha soo galin waxay dhahaysaa shaqadeeda ma isna wuxuu dhahay waxaa iga halaysa markay gudaha soo gasheen surprise u sameyn waxayna dhahaysaa cabsi waa surprise ma wuxuuna dhahay keegan waa inaa cuntaa dhanka kale waxaa arkaynaa keega wax inay ku dhex arkayso in iska dhigaysaa wuxuuna dhahay surprise labada ayaa ku haya buukan saxiix waxaa helaysaa guryo badan wax kasta iyadana waxay dhahaysaa balna iyo muddaa mida kale waan shaqaystaa waxna kaama baahni inuu soo dhawaayo isku dayaysaa waxayna ku buufinaysaa jili paper ayna ka tagaysaa ninkii ayaana wuxuu dhahay baashaan waa inaa mar walba wataa si isku difaacday sidoo kale waxaa arkaynaa tawreen inuu la soo hadlaya tirishada wuxuuna ku dhahay diyaar ma tahay inaad aragtid surprise-ka waxaa arkaynaa in boombilooyin loo soo diray wayna jeclaysanaysaa linkii wuxuu sameynayo dhinac kale tirishada Anshin maamulaha shirkadda u imaanaya wuxuuna dhahay shaqaalaha ugu fiican ayaa taa shirkadeen adiga ayaa horumar gaarsiiya waxayaan la siinaya waana looga hambalyeynaa dhinac kale tawreen ningi sekretariis wuxuu weydiinaya Anshin sidee inuu fiican tahay ay dhahaysaa xaaladeeda waa inaa mid ula soo waxaan ku dhasfaa in wax qaldan ku sameeyo ma laga yaabo isna wuxuu dhahay dib noo celi dhanka Ilfaan wuxuu ka horsugayay sheekada horteeda Anshin wuxuu dhahay hadiyadan ayaa kuu talgalay iga qaadin waxay dhahaysaa hadiyadada ma baahni aan wuxuu isku tagay Anshin inuu xoog siiyo intuu hadiyada si ku tuurayso wuxuuna iska dhigay inay wax gaareen oo gacanteeda ayuu qabsanaa tawreen ningi ayaa imaanaya wuxuuna dhahay gabadhan ka fogow mar dambe agteed kuguma arki kari Anshin ayuuna meesha kasoo wadanaya ningi wuxuu
isweydiina waaye u taabatay qudlowgaas anshin waxay isweydiinaysaa waa linki walaalkiis ka weyn saas ugu xanaajina linkiina anshin wuxuu weydiina waa isaas oo dhan ay ugu dhawaatay faaniyada waxay dhaysaa shilay ee wuxuuna dhahay marka lagu dhawaan waa nin xun waaye ku dhahay waxay dhaysaa aniga qof fiican ayaa ahay ma ay leedahay waxaan ku dhaysaa walaalka ka weyn waaye isna wuxuu dhahay isaga ma u heelinaysa may runta ayaa ku sheegay maka masiirta ayay dhaysaa waxayna dhaysaa sii tagay isna wuxuu dhahay aniga si wada jir uma day karnamiya dad xiriirka dhexeeya camal ayaa u wada nooleen adiga ayaa wax walba ku dheel wax walbana kuu soo celinaya ku dhaysa wayna kasoo tagaysaa waxay dhaysaa ii sheeg lacagtaada meeqa ayay ahayd isna wuxuu dhahay lacagtaa ka hadlay mise qalbiga ayay dhaawacaysaa tooreen linki isagoo wiishkiisa garaasha ayaa arkaysa waxayna dhaysaa inaad soo laamis ma umaleyn isna waan soo laabtay ayuu ku dhahay waxayna dhaysaa anshin xiriir maadan ka dhexe isna maya ayuu dhaha aala ayaa wuxuu weydiin gabdhaha waxa ay jecel yihiin shaan waxay dhaysaa aniga mahadiid ii soo wada iska daa isna wuxuu dhahay maya waxayna dhaysaa anshin ma u soo wada haddaana kula soo taqsiday u aragtaa oo ku raax waa mahadsantahay ayuu ku dhahay dhinac kale tirkiin waxay maalinsa goobta shaqada wuxuuna ku dhahay xubaad way soo kartaa gabadha ay shaqo wadaagtay ay isbana waxay dhaysaa ani ayaa lidhaa tan shuban ayaa lidhaa soo dhawow marka dhinac kale anshin iyo walaalkeed iyo saaxiibteed iyagoo isla joogaan waxaa loo keenaa cunto dheeraad waxayna dhaysaa nagama dalban waxaana lalahaa mudan faan ayaa idin dalbay cuntooyinkan iyo waxaan oo dhan ayuu dhahan faan ayaa imaanaya wuxuuna ku dhahay aniga ayaa dalbay jooyon waxay ku dhaysaa kan yiinoy waa suqaar caadiyan waxay dhaysaa kan tugu eega anshin walaalkeed wuxuu ku dhahay wax walba kama helin laakiin waa maasan mudan linki ayaa meesha imaanaya wuxuuna dhahay marwaxad ayaa kuu soo dhacay booskiisa ayuuna ka fariisanaya faan wuxuu isku dayay inuu hilibka kariyo uuna ka goonaa linkiyoon aniga ayaa sameynaya ayuu dhahay isna gacanta ayuu ka goonayin waxay dhaysaa mar walba is ilaali ayaa ku dhaha soo bax gacanta ayaa wax kaa soo marina anshin walaalkeed nax meesha ka socda ma ka helaayo linkiyoon gaarigiisa ayuu gelinaya wuxuuna u dhiibaya bokiska daawada wuxuuna dhahay ii mariyin waxay dhaysaa inaa kasoo samaysa eeltaas adiga ayay ku tahay laakiin si cafi ayuu hayaa wuu ku cafin karaa laakiin si ay ku dhaysaa laakiin takarab ayuu dhaha mise waa wada iyadana waa guulaystay ayay ku dhaysaa wuxuuna dhahay waa bixinayin waxay dhaysaa walaalkeygiiyo wuxuuna dhahay fariin u dir walaalkeed ay fariin usoo diraysa waxayna dhaysaa saaxiibteedii ilaa saaxiibteedna wuxuu ku dhaysaa maanta fursad ayaa haystaa ee ku yaciin waxay dhaysaa waa isku daya inta awoodo iyoona cabitaan badan ayay isku daraysa waxayna dhaysaa guriga ii kaxee wuuna soo wadaa wuxuuna dhahay intii taagnaa baabuurka ee baakin kasoo bixina wiil ayaa ku dhuldhaca wuxuuna dhahaa warya aniga ma hore dhaysaa ayay dhaysaa wiilka ayay dilaysaa anshin walaalkeeda imaanaya wuxuuna dhahay way cabsantahay nayraan wuxuuna dhahay tan magaalada ka xarey waxay dhaysaa mobilka dib la-aan waa ina dab gashto isna wuxuu dhahay roob ayaa soo socda meeshaan waa ina ka tagnay waxay dhaysaa gacal iyaga ku dhihi karaa dhinac kale waxaa arkayna tirishadeen anshin waxaana loo keenaya hadiyad barfuun haween ugu mahadcelinaysa waxayna dhaysaa kuushay barfuunka ajalaan dhanka wuxuu dhahay hoos ayaa kuu sugayay ima waxayna soo raacay si faamiligiisa u bar wuxuuna u xiraa saacad lamaanayaasha wuxuuna keenaya gurigii faamiligiisa waxaa meesha ka arkayaan faan waxayna dhahay waxaa soo urur maxaa waay isna wuxuu dhahay doqomayo dhan kale waxaa arkayna hawadiisa ay imaanaysa waxayna dhaysaa anshin soo dhawow wayna isla fadhiisanaya dhinac kale shaana wuxuu arkaya anshin imaatankeeda wuxuuna soo kacay si ay isku bartaan salaantan linkiyo ayaa ka qaadayo dhan kale shaa waxay dhaysaa waqtigii iskuulkiisa waa isbaran weyne laakiin hadda ayaa isbaranaynaa waxaa ahayd qof orod badan dhinac kale faanna wuxuu dhahay waa ogaa waqtigii dugsiga sare imtixaankiisa ay galaysay faanna wuxuu dhahay anshin waa qof aad u kul tooreen wuxuu dhahay aniga ayaa ku raw sideedayay dusha ka saaran tahay waxaan imaanaya tooreen linkiyo abiis wuxuuna ku dhahay anshin doonta taagan ayaa tahay soo bax anshinna linkiyo abiis gifti ayay siinaysaa shawn waxay ku dhaysaa waa gifti raqiis ah hooyadeeda waqtigeeda ugu badan buraashkan ayuu ka galay ayay dheh gifti ahaan ayaa kuu siiyey shawn waxay u keenaysaa gifti waxayna dhaysaa adeer aniga ayaa gacanteeda ku samey adiga ayaa kugu talgalay linkiyo abiis waxaan ka dhehismi ayuu dhahay iidna waxay dhaysaa maneeri ayaa soo samey suuqa ayay soo dhigtadna waa soo iibis anshin shaa waxay ku dhaysaa askaga dhiin adeer sawirkaaneet ina adiga soo samaysay linkiyo abiis wuxuu dhahay ordow sawirkaan xareeya dhan kale anshin linkiyo wuxuu ku dhahay waxaan oo dhan moogiyey linkiyo abiis wuxuu weydiinaya anshin intaan oo sanan dhan sidii hooyo la-aan ku noolay waxayna dhaysaa inta cimriga kadhimi waa noolaan karaa keligeyga linkiyo abiis wuxuu ku dhahaya waxaa kugu talgalay hadiyad qaas ah waa ina hadiyadaas qaadataa iidana waxay dhaysaa hadiyada ma furi karo linkiyo abiis wuxuu ku dhahaya maalinkaa go-aansatid hadiyada inaad furtid ayaa qiraysaa intaas ligay qof furaaya ma lahan shaa waxaa arkayna inaysan meesha ay joogin aysan ka heleynin faanna wuxuu cunto ugu ridayaa tooreen linki shaan waxay dhahaysaa linkiyo cuntada ma cuno anshin waxay dhahaysaa hore miyaa isku taqaaneen linkiyoon wuxuu dhahay isku iskuul ayaa ahaan jirnay shaan wuxuu dhahay saacad lamaana ayay wataan aabaan wuxuu dhahay waxaas waxba igama gelin gabdhaan waa inaad farxad siisaa shaanna wuxuu ku dhahay shaa walaalkay sidoo kale soo horbixin lahaa had wajiga uu bedelay iidna waxay dhahaysaa diyaa saas ogtay maxaa halkaan ikan wuxuuna ku dhahay waddo cusub waa inaad samaysna kula fududahay midaas isna wuxuu dhahay si kastay u adagta diyaar ayaa u ah inaa kula maro waddadaas wayna iskaga soo tegaysaa shaan dhinac kale linkiyo anshina wuxuu usoo wada meel u diyaar faanna wuxuu dhahay baashaal wacan ayaan ii rajayna waxaan u imaanay sekretariis waxayna dhahaysaa faan wuxuuna arkaya meesha u diyaariyay in la burburiyo uuna ka qarinaya wuxuuna dhahay rob ayaa soo soco meeshan waa iskaga tegeen hayay ay dhahaysaa wayna kasoo baxsanaysaa waxayna arkaysaa meesha u bursan waxayna dhahaysaa faan sababtaa u necabtay hadda ayaa fahamsida wax loo burburiyo oo kaliya ayuu yaqaana isna wuxuu dhahay lamfilaan inaa kaaga dhig ayaa u baahnaa lamfilaankayga waa hal adiga waa ay dhahaysa wuxuuna dhahay nolol cusub waa inaa bilaabna ay dhahaysa iga ballanqaadna waxba iga qarinina dhinac kale linkiyo abiisna wuxuu dhahay gabadhan waa gabar adag maxaa yeelay ida hooyada soo karin ay saan
faraxsantay waa sida hoodeed camal faan sekretarigiis wuxuu ku dhahay meeshii aad soo burburisay isna wuxuu dhahay maxaa ii gal waxyaabo ka badan ayaa idhi ma aragti waxaa sameeyo atore ninkiion anshin wuxuu usoo wadaya gurigii hore waxayna dhehaysaa ma xanuunsanadii halkaa maxaa ii keentay isna wuxuu dhahay waa ogaanaysaa ukaadi waan isoo wada raacaysa guriga school fiida waxayna arkaysaa meel kasta inay sideeda hore uu kusoo celiyey wuxuuna ku dhahay sharci gurigan waxyar ayaa ka bedelay aniga ayaa soo gatay adiga ayaana kugu wareejiyey gifti ahaan jaceylkeeni gurigan ayuu ka bilaabmay diyaar ma u tahay jaceylkeeni inuu halkaani kasii socdo tirishadan anshinna way ka ogolaanaysaa wuxuuna usoo wadaya gurigeed waxaa arkayna iyagoo isla socda walaalkood ayaa arkaya wuxuuna dhahay inakeen guriga ayaa aadayna ninkiion wuxuu dhahayaa labadan jaceyl ayaa naga dhexeeya aawo dhunkashada dhahay sideedii ukaadi hab ayuuna siinaya isna wuxuu dhahay neefaf maxaa waa habtan xoogga ah walaalkeedna wuxuu ku dhahay waa wiilinkii u shukaansta iyadna waxay dhahaysaa waxaa dareemaya inuu jeceliya si hoose wuxuuna isku leeyahay may jeclaatay wiilkani wuxuuna dhahay qof qaldan ayaa jeclaat keliya ii sheega duuso qaldan kula dhaqmay waan fahmay laakiin si wanaagsan ayuu la dhaqmaa anshin walaalkeed waxay ku dhahaysaa haddana waxaa u baahnay inaa gurigiisa u guuro wuxuuna dhahay maalinka guuraysa leela soo socsiyay albaabka ayaa lasoo garaacay aliyan waxay dhahaysaa alaabta inaa guurina anshin ayaa halkan u joognaa anshin waxay ku dhahaysaa waa caawisay waa maasantay aliyan waxay ku dhahaysaa wax ma kuu dhimid waxay dhahaysaa may keliya waxaa rabaa inaa ku weydiiyo ninka dadka dhan sida miyuu ugu wanaagsan wuxuu dhahaa haawa sida aabihiis oo kale yaa wax cusub haya laa anshin aniga ayay dhahaysaa waxayna dhahaysaa sawirkan ayaa u baahanay aalada boonuska inaa ka iibiyo wax badan ayaa ku daraya waxay dhahaysaa fikradan fikrad ciyaalada xitaa ka helaya aanin waxay dhahaysaa fikradan waa fikrad aad u fiican booskan wuxuu ku dhahayaa anshin fikrad aad u wanaagsan waaye makula tahay fikradaada inay ay guuleysanayso ay gadmayso anshinna waxay dhahaysaa keliya inaa isku daya ayaa u baahanay okay isku daya ayuu dhahayaa sidoo kale anshin waxay soo aadaysaa lingiyo waxayna dhahaysaa maanta shaqo dheeraad ayaa qaban rabaa lingiyon wuxuu dhahay culeys miyaa lagu saaray aniga ayaa cusub ay dhahaysaa meeshan securitygeed aw ayuu dhahay idin wasiir maahi ayay dhahaysaa wayna ka tegaysa anshina shaqooyinkeeda oo dhan ay habeenkii dhamaystiranaysaa subaxii ayaa la gaarayaa waxayna usoo baxaysaa banaanka waxayna arkaysaa lingiyo oo baabuurkiisa meesha yaalo waxay dhahaysaa xalay oo dhan inta maa joogta isna magaalka sidaa u gadaado inta iga jooga ayuu dhahay qurac ayuuna u keenaa inaa xoogoo nasataa shaqooyinkiina iska soo dhamaysaa ayay dhahaysaa waxaa arkayna iyagoo ina meel dheer ka fiirinaysa waxayna dhahaysaa ansh farxadaan oo dhan uma qalantid janaalka waa janaalkiina ina wax nagu soo kordhin